osallistua. Vielä hyvin suomea, joten minä haluaisin puhua somalia. Se sopii mulle. Olen Abirahim Hussein, veli Hashim mielestä entinen turkulainen, vaikka edelleen äitini asuu täällä ja juureni on täältä, joten omasta puolestani tervetuloa. Tämä on Länsi-Suomen Somaliseuran 20-vuotisjuhla. Aikoinaan muistan kuinka itsenikin Abdisalanin ja monen muiden johdossa. Ja vaikka olen muuttanut Helsinkiin, niin sydän on edelleen täältä ja joskus, jos kuuntelette niitä ohjelmia, missä aina esiinnyn, muistutan aina, että olen edelleen TPS-fani, vaikka nyt TPS:llä menee huonosti ja välillä kyllä sattuu, kun seuraa, että saa turpiin ja kunnolla saa turpiin tällä hetkellä. Että en tiedä kenen vika on, onko se sitten somalainen vika, miksi TPS ei nyt onnistu, mutta toivon, että te alatte tsempaamaan TPS, että se alkaa taas jälleen kerran onnistumana veli. كل جوا سلامتي waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo xafladan sharafta leh ee noo abaableen ururka dalada jaaliyada Soomaaliyeed ee galbeedka Finland. Waxaan u talagalnay xafladan in la isugu keeno ummadda Soomaaliyeed ee isku degan qaybtan Turku. Marka dadkiina Finland ooga yimid dadkiina Helsinki ooga yimid kulligiin horta soo dhawaada. Anagoo ah reer Turku waa maaragtay Helsinki meelageed masadada meelo kale ka yimid dabada maasha Allah. Marka aad iyo aad idin soo dhaweynayaa barnaamijkeena waa bilaabanaynaa waqtigu waan ugu yar yahay. Waxaan rabaa inaan u yeero gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee galbeedka Finland Maxamed Khaliif ayaa rabaa ja ennen kuin mennään tähän ensimmäinen pyydetään yhdistyksen puheenjohtajana Veli Hashim kiittää kaikki tänne tulleita ja myös ei pelkästään Helsingissä, mutta myös muualtakin tulleet. Tervetuloa puheenjohtaja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidii Abdul sheegay turjubana nujugu waxaan ku hadlaynaa afkeena Soomaaliga ah maadaama Soomaaliga isku badan tahay. Marka hore waa in mahadcelinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha dadka dibadda ka yimaada kuwa gudaha gobolka ururada kale ee ka socda magaalada iyo banaankaba. Xafladan haddaan idin bilaabo ii sheego waa xafladii sanad guuradii 20aad ee ururada laga dhisay Turku. markii dambe ururada isku bedelay jaaliyada. waa xaflad aad iyo aad u weyn gobolka uu ku yahay. dad qiimo leh oo gobolka ka socdo, madaxdii, culimadii dhammaan ayaa ka soo qayb galay. waa xaflad aad iyo aad aan uga soo shaqeynay. dad badan oo dhalinyarada la shaqeeyay rag iyo dumar isku jira ayagana waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oo weyn dhan ila taagnaa ila tagaayay bariyada aan kusoo bandhigayna dhaqankeeni. waxaan labadaba isku darnay dhaqankii iyo xafladii sanad guuradii 20aad maadaama iyagoo dhan ay ka socotay wiilkan soo bandhigida dhaqanka. ayadoo la bandhigaya carruurta la barayay nasiib aniga waxaan u yeeshay laftirkeega ereyo badan oo dhaqanka ah inaan meesha ku barto iyo agabkii aan isticmaali jirnay markii aan joognay Soomaaliya iyo kuwii naga horeeyay ay joogeen. hadal maraba inaan badiyo waa in mahadcelinaa marka hore dhammaantiin waa mahadsantihiin aad iyo aad ay u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum tervetuloa tähän tilaisuuteen ja olen tosi iloinen siitä, että me järjestettiin täällä Turussa 25-vuotisjuhla. Nyt mun pitää puhua suomea, kun Hossa siellä seisoo katsomaan mun silmiin. Hän tosiaankin toivotti teille tervetuloa tähän tilaisuuteen, että
että somalialaiset olivat täällä Turussa 25 vuotta. Ja täällä on tuttu naamoja, jotka on ollut jo aikoina nuorena afro-tukka päällä. Hussulla ei ollut afro silloin vaan kuulee. Mutta ainakin mulla on ollut ja Abdisalanikin on ollut afro ja kaikki hävisivät valitettavasti. Mutta Helsingissä, Helsingin politiikassa, Helsingin yhteiskunnassa on onnistuneita. Suurimman osa heistä ovat muualta kuin Helsingistä. Nyt puhun somaleista ja somalilaisista. Ja vielä iso prosentti näistä onnistuneita somaleita siellä pääkaupunkiseudulla ovat Turusta kotoisin. Siinä mielessä, että Turku on ollut sellainen kaupunki, joka on kotouttanut, tai puhun kokonaista Varsinais-Suomesta, ei pelkästään Turusta, vaan kokonaista Varsinais-Suomesta. Mehän aloitettiin aikoinaan Perniosta, sieltä siirryttiin Saloon, jotkut meistä siirtyi tänne Turkuun ja olen asuttu täällä omasta puolestani. Tervetuloa ja hyvää illaa jatkoa teille. Haluan töitä somalien keskuudessa, tai somalien ja suomalaisten keskuudessa. Me somalilaiset kunnioitamme. Meillä on sellainen nimet sultaanit ja ugaasit ja mä en tiedä mikä on suomeksi. Hussu, sä tiedät varmaan paremmin. Mitä? Wabar. Siis suomeksi mä sanon. Just. Joo. Eli haluaisin kutsua Mahmoud Mursal tänne. Waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo odayaasheenna inaan maaragtay odayaasha Soomaaliyeed ee reer Turku. Mahmoud Mursal wuxuu ka mid yahay dadka aad iyo aad ugu magaca dheer magaalada gudaheeda Turku oo ka shaqeeya isdhexgalka bulshada hadday tahay Soomaalida dhexdeeda iyo haddii ay tahay Finishka iyo Soomaalida. Markaas darteed waxaan jeclahay inaan ugu yeero Mursalka Tervetuloa. horta waxaan ugu hambaleynayaa sanad guurada 20aad ee ka soo wareegtay waqtigii la asaasay jaaliyadda Soomaaliyeed. Yaan aad iyo aad ugu hambaleynayaa dhalinyarada abaabushay ee isku keentay dadkan ee tiri dhaqanka Soomaaliya hala barto, dhaqankii Soomaalida hala barto. Yaan aad iyo aad ugu hambaleynayaa dadkii martida ahaa ee noo yimid ee naga aqbalay aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa. Dhaqanka marka laga hadlayo isaba dhaqanku waxa weeye waa identity culture-ka ummada ay leedahay weeye. Dhaqanku waa identity culture-ka ummada ay leedahay. Ummadaha kale waxay kaga duwan tahay, waxay leedahay dhaqan u gaar ah. Waxa soo gelaya luqadii baa soo gelaysa, dhaqanka agabkii ay isticmaalayeen ee nolol maalmeedka u isticmaalayeen baa soo gelaya. Waxa soo gelaya suugaantoodii baa soo gelaysa iyo gabayadooda. Intaasiba wuxuu ka kooban yahay dhaqanka ay ummadaasi iska leedahay. Waxaa ku xigaya geographical deegaan ay degan yihiin oo isku dhow oo intaaba dadka wada midaynaya. Intaas iyo waxa la isku yiraahdaa inay ethnic israaci gara ay yihiin. Intaa taayada markaan kaga baxo wadankan waxaan nimid 90kii baan nimid. Waxaanu 90kii ilmaha dhashay maanta waa 20 jir weeye. waxaana moodaa jiilkii labaad inuu ku dhalanayo dalka. Muhiimna waxaa ah inuu dhaqankiisa iyo asalkiisu meeshuu ahaa uu barto uu ogaado. Runtii si sharaf leh ayaan loo qaabilay waagaan nimid 90kii. Si bini'aadnimo ay ku jirteen waa naloo muujiyey innana inaanu qalbiga ku hayno haddaan dalkeennii ku noqonno in aanu noqonno dalalkan aanu joognay dadkii u joogay ee ka wakiilka ahaa ee iyaga ka midka ah. waan ku soo dhaweynay dalkeenna, aanu ku tixgelinay dhaqankooda, aanu ku xushmayno waxa ay yihiin asal ahaan sida inaga loo xushmay. Waxaa kale oo farxad weyn ah xusuusna ah aniga iyo gabadh xagaa fadhido saari la yiraahdo 1997 iyo waxaanu sameynay dhaqankan oo kale iyo waxaanu ku sameynay Kansibaarne Koota Spike oo wiil ka socotay. Saari baa markaa joogtay aniga Saari baan ahay exhibition baan u sameynay Somali culture ahaa waxayna ahayd 1997. maanta agabka yaalla muusuluun inkastoo maalintaas Saari ay keentay guur Soomaali ay keentay oo guur Soomaaligi maanta muusuluun agab badan baa laakiin ay keentay si badan baan wax u sameynay
waan ugu hambalyanayaa inaan waqtigana ka lumiya ma rabo kusoo dhawaada dhammaantiinba wayna noo furan tahay habeenkii wiigii dhaqanka ee dhaqanka Soomaaliyeed ee integrationka aan ku sameynaynay finishka iyo Soomaalida isdhexgalkii dhaqamadooda wabillahi tawfiiq wa mahadsantahay. Kulttuurista puhuttiin, se oli pitkään, en pysty kääntämään kaikki mitä Mahmut Mursal on tässä puhunut, mutta tärkein on se, että se viesti on ollut sen, että kuinka tärkeää se on, että täällä Suomessa suomalaiset, somalilaiset ihmiset, jotka elävät keskenään tässä maassa, pystyy kulttuurillisesti ymmärtävät toiseen ja meillä on pitkää perinne siitä, miten eletään ja miten ollaan ja välillä voi olla jopa vaikeakin. Siis tilanne on kuitenkin sellainen. Haluan kutsua vielä ihminen, joka puhuu suomea paremmin kuin me kaikki. Ja Olli Mania, tervetuloa. Hyvä juhlaväki, hyvät ystävät. Olen iloinen, että olen saanut kutsun tähän tilaisuuteen. Valitettavasti mun soman kielen taito on aika vähissä, joten joudutte tyytymään, että mä puhun vaan suomea. Mutta ihan oikeasti on tärkeää tietysti, että näitä kulttuureita, kun meille on muitakin kuin somalikulttuuri täällä, meidän pitää, kantasuomalaisten pitää oppia ymmärtämään kulttuureita ja tietysti olisi erinomaisen hyvä asia, jos joskus mekin oppisimme aina jonkun uuden kielen. Se ei tosin ole ihan niin helppoa. Meidän on aina niin helppo sanoa muille, että teidän täytyy opetella suomea, mutta sitten kun kysytään, että jos viitsisit opetella jonkun muun kielen, niin ei se ihan niin yksinkertaista ole. Mutta jos mä saisin muutaman sanan puhua Turun historiasta sen takia, että se vähän ehkä kuvaa kuitenkin turkulaista taustaa. Tämä Turun alue on asutettu noin 1000 vuotta sitten. Ja siellä on 2 nimeä. Ruotsinkielinen nime, joka on siellä taustalla Oulu, joka siis tarkoittaa joen varrella asuvat, jokikylä, kertoo sen, että täällä on asutusta. Toinen on itäinen nimi Turku, kauppapaikka, joka kertoo, että täällä käytiin kauppaa. Tämä oli erilaisten kansojen ihmisten kohtauspaikka. Ja se on tämä kansainvälinen tausta, josta Turku on lähtenyt ja se on vaikuttanut satojen vuosien aikana. Me ollaan kansainvälinen kaupunki. Täällä on käsitys siitä, mitä ovat toisenkieliset ihmiset, toisella tavalla ajattelevat, toista uskontoakin käyttävät ihmiset. Se ei ole meille vierasta, mutta siitä huolimatta, niin kuin varsin hyvin tiedätte, ennakkoluuloja aina riittää. Mutta taustaltaan Turku on kuitenkin mielestäni parasta aluetta Suomessa. Ja toivottavasti tämä yhteistyö, joka myös somaliyhteisön kanssa on kehittynyt ja toivottavasti parantuu koko ajan, niin se tulee toimimaan yhä paremmin. Meillä niin helposti täällä Suomessa selitetään sitä, että on olemassa semmoinen suomalainen, joka on erilainen kuin tänne tulevat. Kuitenkin totuus on vähän toinen. Nyt jos tehdään vähän sukututkimusta geneettisesti, niin se on aika mielenkiintoista katsoa, mistä tämä suomalainen oikein tänne on tullut. Mun vaimon sisko on hyvin kiinnostunut tämmöisestä geneettisestä tutkimuksesta ja siellä on sitä selvitetty, niin kyllä ne geenijäljet niin ne löytävät tuonne noin Uralin taakse. Ne myöskin löytävät tuonne Välimeren alueelle, ei pelkästään niin kuin tänne pohjoiselle alueelle. Että tätä geeniperintöä on matkalla tullut tänne ympäri maailmaa. Ei me olla oltu täällä aina tämmöisenä kuin me ollaan. Me ollaan tultu tänne slaavilaisen kulttuurin ja tämmöisen anglosaksisen kulttuurin väliin on syntynyt tämmöinen porukka, joka on tänne lähtenyt tulemaan tuolta jostain kauempaa Baltiasta ja sitten tänne Suomeen. Oma taustani, kun tietysti olen myöskin tutkinut ja olen sitä tutkittu, niin multa löytyy esi-isiä Saksasta, Ruotsista, totta kai Suomesta. Mun äitini on syntynyt Namibiassa, tosin hän ei ole tummaihoinen, mutta joka tapauksessa on syntynyt Namibiassa. Että kyllä tässä maailmassa on tapahtunut aika paljon aikaisemminkin syystä tai toisesta. Ja toivon mukaan me aina muistaisimme tämän taustan. Suomessa käytiin sisällissota hiukan vajaa 100 vuotta sitten. Suomalainen vastaan suomalainen, ja tekin tiedätte, että maailmassa jatkuvasti on somalien klaanien välillä, on arabimaissa niin
samantaustaiset ihmiset, joilla on hiukan erilainen tilanne, lähtevät kiistelemään keskenään, niin Suomessakin silloin. Ja yleensä sisällissodat ovat kaikkein ikävimpiä, koska niiden jälkiä on hirveän vaikea korjata lyhyessä ajassa. Aika oli vaikea sen jälkeen, kun se taistelu oli käyty. Sitten tuli toinen maailmansota ja se oikeastaan yhdisti suomalaiset taistelemaan sitten Suomen puolesta, ettei niin kuin suomalaisuus joutuisi kärsimään. Mutta siitä ajasta on kulunut yli 70 vuotta. Ja valitettavasti meidän nuorempi polvi monet ovat vähän unohtaneet tämän taustan. Että mitä meilläkin on tapahtunut. Katsotaan vaan sitä, että kun ollaan nyt oltu rauhassa 7 vuotta ja tätä hyvinvointia tänne saanut rakennettua, niin tämä on meidän hyvinvointimme, tämä on jotain semmoista, joka kuuluu vain meille. Eikä muisteta sitä taustaa, mitä silloin oli. Suomalaisia lapsia vietiin tuhansittain Ruotsiin, sotapakoon. Monennäköisiä asioita tehtiin silloinkin. Silloin kun rajat menivät täältä uusiksi, niin Karjalasta tuli tänne satoja tuhansia, nyt ei ihan paljon ihmisiä tuli tänne, jotka piti silloin myöskin saada asutettua ja muuta. Eikä se ollut helppoa. Me ollaan vaan unohdettu se. Ja nyt maailma on vähän toisenlainen. Maailma elää, me nähdään koko maailma ympärillämme, tiedämme näitä ongelmia, mitä tapahtuu. Ja se, että se muutos on ollut niin raju, niin siihen ei oikeastaan ole riittävästi osattu varautua. Mun mielestäni niin kuin Turussa tämä tilanne muualta tulleiden ja täällä pitempään asuneiden välillä on ollut varsin kohtuullinen, aika hyvä oikeastaan. Mutta nyt, niin kuin tiedätte, kun tämä murros tapahtui tänä vuonna, milloin tilanne muuttuu niin voimakkaasti, niin se on heijastunut myöskin niihin, jotka on täällä pitkään ollut. Että taas niin kuin tätä keskustelua lähdettiin lähestymään väärällä tavalla, ja siinä on ollut aika paljon työtä, niin kuin, että nyt malttia, että yritetään hoitaa nämä asiat. Me ollaan ennenkin tässä yhteiskunnassa pystytty asiat hoitamaan, niin me pystymme tekemään nytkin. Mutta se vaatii vähän työtä, aikaa ja miettimistä, että miten tämä nykyinen tilanne saadaan niin parhaalla tavalla hoidettua. Siihen on tullut ikäviä piirteitä. Te kaikki tiedätte sen. Siihen liittyy rasismia ja muuta, joka on nyt nostanut päätään. Ja mä olen siitä hyvin surullinen. Edellisiltana tulin tilaisuudesta taksilla nuori, tummaihoinen kuljettaja, toiminut kotiin ja me keskustelimme matkalla. Hän puhui erittäin hyvää suomea. Hän sanoi, että joo, että kyllä hän on kaikennäköistä tehnyt, nyt hän ajaa takseja ja hän tykkää tästä. Mutta lauantai-illat ovat vaikeita, kun suomalaiset käyttävät aika runsaasti alkoholia ja sitten sieltä tulee vaikka mitä. Ja hän jotain kertoo ja täytyy sanoa, että kyllä minua hävetti. Pyydän teiltä kaikilta anteeksi siitä, että edelleen näitä ilmiöitä tässä on. Se ei ole koskaan oikein. Ja toivon, että me tässä yhteiskunnassa opimme myöskin se, että me kaikki olemme ihmisinä yhdenvertaisia, erilaisia, mutta yhdenvertaisia. Meidän täytyy kunnioittaa toistemme arvoja ja kulttuuria ja kuitenkin noudattaa tietysti samanlaisia sääntöjä tässä yhteiskunnassa. Ja mä toivotan teille yhteisönä menestystä ja toivon, että meidän yhteistyö täällä jatkuu, että Turku osaa ja Turun ympäristö osaa hoitaa asiansa oikein ja antaa kaikille kunnon mahdollisuuden. Kiitoksia. Kiitos kaupungin hallituksen puheenjohtaja Olli Mania. Waxaan ka xiiseeyey kolley waxaan u malaynaya inaan turjumi karin waxyaabihii Olli ku hadlay laakiin waxa yaraan rabaa inaan ku darsado fikrad ahaan waxaa hadaladiisa aan ka dhadhamiyey in Finland ay ahayd waddan dagaal sokeeye soo maray sida anagu hadda aan ugu jirnay 25 sano oo soo dhaafay. Waxaa marka fiican hadda waxaan isugu nimid kulligeen dhaqanka Soomaaliya inaan maaragtay halkaas waxaa noo saaran udbo iyo dhiilo iyo dambiilo iyo qurux iyo marka anagu isu nimaadno Soomaali haddaan nahay intaan shirno waxyaabo qurxoon waa istusnaa waan isu sheegnaa. Laakiin mararka qaar waxaa fiican weliba jaaliyadda horeetu ku aan rabi lahaa iyo jaaliyadaha kale oo ka jira Helsinki aan rabi lahaa mararka qaar inaad isxasuusisaan waxyaabaha ku fiican tahay dhaqankeena
inaan ka saaro dhibku ka mid yahay oo aysan naga dhexaynin wax la yidhahdo muwaadiniin Finland ku gudbeen soo ma sida marka isu dhabeeyo gudbeen team shidi wax gudbeen adduunka waddanka team shidi badan ay Finland haddana waxay gudbeen ma jirto anaga laakiin kama gudbina badanaa isku waxaan sameynaa mistake raalli hada sharcigii waa ka gudbay xiriirinta sheekada iska galay hadda waxaan rabaa marka inaan u yeero nin saaxiibkay intaan u yeero saaxiibkay حبيبي أول واحد أنا كنت سودان إيه من اليوكا بالين كاونين بيكون هوسو يا تطا يا هنواسن توي että Habiba olisi täällä mun kanssa juontamassa ja mutta Habiba, tervetuloa. Onko sä kuten entinen ulkopuolinen? Kyllä olen itse asiassa. Kiitos kutsusta tänne. Joo, mä vähän kauemmin kuin Hussu, pakko myöntää. Mutta joo, kaikki parhaat ihmiset on näköjään kotoisin alun perin Turusta, joten itse olen asunut Turussa täällä 93 muutin Espooseen, että tuli pitkältä matkalta näköjään tänne asti. Mutta joo, hyvä. Mennäänkö ohjelmassa eteenpäin? Joo. Mennään eteenpäin. Haluan kutsua, waxaan rabaa nin ka mid ah odayaasha reerka ku dhalinyaro isku sheegaa laakiin odayaashu ka mid yahay oo saaxiibkay ah oo nin aad qaali u ah magaalada runtii ah oo 25 sano deganaa Maxamuud Xirsi ayaa rabaa inuu kelmadiisa halkaan ka soo jeediyo. Muxudiin, sorry. Eli seuraavaksi kutsutaan Muhyiddin Hirsi yhdessä yhdistyksestä puheenjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Mielellään puhun suomen kieltä kuin somalia. Myöhemmin mä puhun somalia, mutta ensin mä puhun suomen kieltä. Mä olen niistä somali, joka tuli tälle ensimmäisenä. Meitä oli 9 henkilöä, eli 4 aikuista ja 5 lasta. Ja tällä hetkellä niistä 9 me asutaan täällä 2. Minä ja toinen nainen tai rouva, joka tällä hetkellä järjestelee tässä tilaisuudessa. Me tultiin 7. päivä toukokuuta 90 ja ennen meistä Suomeen tuli 6 henkilöä, joka sijoitettiin Itä-Suomessa. Ja mä muistan siitä, että kun me oltiin rajalla siitä, me oltiin melkein 3 tuntia, että sanottiin, että voi hakea turvapaikkaa täällä. Ja sitten me emme halunneet hakea täällä turvapaikkaa. Me sanottiin siitä, että me mennään Ruotsiin, koska me emme tunteneet täällä Suomea ollenkaan. Sen takia, että meillä on tuttavia, joka asui Ruotsista ja me tiedämme siitä, Ruotsissa asuu paljon somalialaisia. Mutta mä silloin olin niistä 9 henkilöä, heidän tulkin. Mä puhun silloin englantia ja tulkasin siitä. Ja silloin mä sanoin oman mielipiteitäkin silloin, että en mä silloin toimin oikea tulkinna. Mutta mä sanoin siitä, että me emme voi jäädä tänne. Ja sen jälkeen, kun on kulunut 3 tuntia, me annettiin 2 vaihtoehtoa. Joko me menemme takaisin Venäjälle, tai silloin Neuvostoliitto, tai me jäädään täällä hakemaan turvapaikkaa. Kyllä tässä tilaisuudessa siitä me haettiin turvapaikkaa täällä. Ja mä olen iloinen, että mä jäin Suomeen. Sen takia, että Suomi on ihan uusi maa meille. Ja ei ole paljon tilaisuutta verrattuna Ruotsissa. Täällä oli koulutusta, täällä oli kaikki meillä järjestetty ja meillä otettiin avokätisenä hyvin täällä ja mä olen iloinen siitä. Eli ne suomalaiset silloin on tehnyt päätös, että mä voin jäädä tänne, että mä olen iloinen siitä. Jos mä palaan täällä Turkuun, me asuttiin täällä ja mä olen niistä somali, joka jäi Turkuun ensimmäisenä. Eli mä sain oleskelulupa lokakuussa ja mä sain asunto silloin Halisissa. Ja mä muistan, Halisissa silloin oli 3 taloa. Tällä hetkellä Halis on täynnä taloja, mutta silloin on 3 taloa.
Ja meidän porukka, joka me tultiin silloin vähitellen sinne, siirrettiin jouluna Pernioon ja mä jäin ainoa yksin tänne ja mä jäin orvoksi. Silloin että mulla oli hätää siitä, että mihin mä voin jäädä, kenen kanssa mä keskustelen ja mitä mä voin tehdä siitä. Mutta onneksi tammikuussa tuli osi porukka Lahdesta silloin ja mä sain ystäviä. Paljon somalialaisia on asunut täällä, sen jälkeen me tultiin asumaan tänne, eli tultiin Nastolasta, tultiin Hauasta, tultiin, kaikki on tullut tänne ja meitä oli paljon. Mutta valitettavasti moni on muuttanut Helsinkiin sen takia, että Helsinki oli pääkaupunki. Ja meillä on tapana siitä, että pääkaupunki on paljon mahdollisuuksia verrattuna muita, koska Somaliassa esimerkiksi lukien jälkeen yliopisto ainoa paikka oli Mogadishussa eli pääkaupungissa. Ja monet olivat jääneet sitä mieleen, että ei voi saada mahdollisuus täällä, mutta mä jäin tänne ja sitten kun mä näin mun ystäviä täällä Helsingissä ja kysyin, että tulitko tänne asumaan siitä, mä sanoin, että ei, enkä aio tulla. Jos mä muutan Turusta siitä, mä menen sitä Somaliaan. Aina mä vastaan näin. Ja me opiskeltiin ja mä olin töissä tulkina toiminut siitä 90 alkaen siitä ja siitä vastaanottokeskuksessakin mä olen toiminut tulkina. Ennen oleskelulupaa silloin, mulle ei maksettu, mutta vapaaehtoisesti silloin oli tapana siitä, että turvapaikanhakija ei voi tienata. Ja kun mä sain oleskeluluvan, heti mä sain töitä siitä ja opiskelin siinä. Ja lisäksi siitä, että kun mä olin vastaanottojakeskussa ennen oleskelulupaa, kyllä mä opiskelin suomen kieltä yliopistossa. Mä itse maksoin siitä, mutta mä iloinen siitä, että täällä oli yksi tulkki, joka tuli Ranskasta somalialainen, joka vaimo oli ruotsalainen siitä. Ja hän on toiminut tulkina. Eli me tehtiin tulkausta siitä, että eli turvapaikanhakija puhuu somaliaa, hän käänsi ranskaan ja sitten hänen vaimo oli ruotsinkielisiä, hän käänsi ruotsinkielisiä, se olikin, voi tulkata sitä somalia siitä. Sen jälkeen mä oon kertonut siitä, että mä aion mennä opiskelemaan suomen kieltä siitä yliopistossa siitä, silloin se maksoi 600 markkaa. Ja hän sanoi heti siitä, että mä voin maksaa puolet siitä, jos hän osallistui siitä. Ja mä olen iloinen siitä, että mä maksoin puolet ja mä osallistuin silloin kurssilla ja sitten heti mä sain töitä. Ja tässä Turussa tällä hetkellä on paljon, monet on tullut tällä hetkellä uusia ja mä toivon siitä, että täällä tullaan ja käytäytetään, että miten täällä käytäytetään siitä. Täällä on paljon mahdollisuus voi opiskella siitä. Jos mä kerron Somaliassa siitä, niin ainoa, joka voi mennä ulkomaille siitä, niin joko isä tai perhe on rikas tai on korkea asemassa hallituksessa tai valtiossa siitä. Mutta tällä hetkellä me saadaan ilmaisia opiskeluja siitä. Mun taskussa tällä hetkellä on kaksi tutkintoa, sitä insinööritutkintoa, sitä kasvattilin tutkintoa. Ja voi opiskella mahdollisuuksia aika paljon siitä. Ja toivon siitä, että suomalaisille antaa mahdollisuus, että niitä, jotka tarvitsevat tai haluavat edistyä täällä Suomessa. Okei, mä puhun somalia sitten. Ada kualleja, somalia kualleja. Waxaan ahay Soomaalidii ugu horreysay oo Turkuutimi. Annagu 9 qof baan ahay maalintii ugu horreysay. 9 bishii 7 bishii shanaad 9kii baan nimi. 4 qof oo qaangaar ah iyo 5 ciyaar markaas baan ahay. Ciyaalkii mid ka mid ah gabar ka mid ah hadda way joogtaa. Daadiyare magaalada Turku bay la degan tahay laakiin intii kale way guureen. Oo Helsinki bay u guureen iyo Espoo. Markaan halkaan nimina waxyaalo badan baan la kulanay runtii oo dhaqanka cusub nagu ah. Dhaqanka cusub iyo isdhexgalku uu adag yahay haddii aysan jirin wax dadka ka dhexeeya.
waxaan ula jeedaa luqad haddaysan jirin dadku ay isku fahmaan oo kale. Hadda way sahlan tahay dadku markay isfahmaan luqadda bartaan oo kale way sahlan tahay. Waxaan xasuustaa bishii 10aad baa sharciga laystay bishan markaa oo kale. Guri hal inan baa laga siiyey, hal inana waxaa ka dhisnaa xilligaasi 3 guri baa ka dhisnaa. Meesha la yiraahdo nunti uksikuya guriga ku yaala ayaa ka dhisnaa kaliya. Waan xasuustaa dadkii nala joogay meesha ilaa 100 waa gaaraynay. Bishii 12aad ayaa waxaa loo wareejiyey beerna loo wareejiyey aniga kaliya magaalada ku haray. Markaasna waxaan dareemayay runtii waana baqaya wixii gaara ama ila soo gudboonaada. Waxaan kaloo aan xasuustaa inaan u shaqayn jiray finishka taa kuma sheegin volunteer waxaan u shaqayn jiray kaamka aan markaa joogno turjumaan baan ahaa oo qayb ka tirsan shaqaalaha xafiiskooda ayaan ka tirsan subax markaa soo ka xafiiskooda ayaan geli jiray ka shaqayn jiray kafeegooda iyo shaahda la cabi jiray. waxaan xasuustaa maalintii ugu horreysay guriga la dejiyey alaab baa la ii dhigay. alaabta markii la ii dhigay waxay ahayd October bay ahayd. October mugdi buu ahaa xilli kale noqday 4tii iyo barkii bay qoraxdu dhacaysay. sidaan u warwareeganayna waa qoraxda nagu dhacday. kabacdi guriga baa la geeyey. gurigii 2 nal baa ka yaaray ka jiray meeshaas musqusha iyo jikada inta kale nalkala kuma xirneen. marka meesha dekeriga baa layga soo tegey runtii taxi bas baan soo raacay oo waxaan imi kaamkii baa inaan sixinahay waa la ii diiday inaan kaamku sixdo. ruuxa ku sheegay geedinka taqaaneen baan ahay keli baan ahay ma inaan kelimana caaw keliya aan seexdo ma yaadeen 6 qof oo meesha joogay 6 wiil meesha joogay hore u kaxaysto habeenka ay la seexday. minaha kelinimada ay absida aan dareemayo runtiina Soomaali badan baa soo degtay markii sharciga la qaatay halka kan oo magaalada Turku waa soo buuxsantay laakiin waxaan nasiib darro ah inay dhammaan guureen oo intii badna ay guureen oo ay guureen Helsinki iyo nawaaxigeeda. sababtaasna waxaan ku qiyaasayaa inuu yahay hal cudurkaas waxa weeye in la yiraahdo magaalo madaxda keliya ayaa fursad ka jirta oo dadku aadaan oo kale. laakiin arrintu saas ma aha. fursad meel walba ay taallaa. maxaa yeelay gobollada dadka ka yimi haddaan arkayno oo dadka Helsinki jooga dadka luqadaha fiican ku hadla waxay ka yimaadeen ama luqadda finishka si fiican u yaqaana waxay ka yimaadeen gobollada ka yimaadeen. goos waxay helayaan fursado ay ku hadlaan dadka finishka ay kula hadlaan oo kale. waxaa laga yaabaa magaalo madaxda markaa joogtay dad Soomaaliyiin kaliya iyo Soomaalidii dhexdooda ay ku wada hadlaan oo kale. aad baan ugu faraxsanahay halka kan aan ku arkayo takhaatiir siyaasiyiin dhalinyaro halkan ku yimi oo helay fursado ay wax ku bartaan oo ay jaaniskooda ay ku gaaraan. sidoo kalena waxaynu kula talinayaa ninka weliba dhalinyaro badan baa joogta fursad baa taalla. fursadda taalla waxay tahay inaad wax barataan waxbarta. weliba jiilka halkan ku dhashay oo gadaal fadhiya oo la sii hadlayaa dadaalka ku sii dadaala ayaan leeyahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Okei, näköjään mut on hylätty tänne Welikin ja hylkäs mut. Ei mitään, enkä mä pärjää tässä. Kutsun sut sitten kun mä en pärjää. Mut joo, mennään vähän ohjelmassa eteenpäin. Barnaamijkaatu nousi soconaya. Waxaan ugu yeerayaa xoogaa qisadiisa nooga sheekeyn doono dadka horumarka gaaray dhakhtar Cabdiwaaxid Ali Beeto. Eli me mennään nyt ohjelmassa vähän eteenpäin. Meillä on somalilaisia menestystarinoita. Mä kutsun meidän lääkärin tänne Abdelhamid Ali Beeto. Tervetuloa. Hän on mulla tuttu jo noin 20 vuotta, että se ei osaa yhtään kertoa. Kerro kaikille, kiitos. Se on jännittävää. No, joo, alussa puhun suomea ja sitten voisin vähän puhua somalia. Nimenomaan alueella erikoistuva kirurgi Helsingissä Helsingin yliopistolla. Suomeen tuli 95. Silloin oli noin 11-vuotias
Ja ennen sitä niin me asuttiin Somaliassa perheen kanssa Mogadishossa. Ja ennen sotaa, niin jos muistan oikein, niin olin noin kuukauden koulussa. Ja se oli tämmöinen joku arabiankielinen koulu. Ja se oli niin, että vaikka minä en ollut 7-vuotias, mutta silti minut on viety kouluun. Mä en tiedä missä syystä. Ehkä perhe haluaisi päästä minut eroon, kun minä olen ehkä vilkas lapsi. Sekin voi olla. Mutta mä muistan, että kun siinä päivänä, oliko se joku sunnuntai, niin mä olin koulussa, aina minut vietiin kouluun ison velin kanssa. Ja minut on viety kouluun, mutta sitten yhtäkkiä niin me kuultiin, että on sotaa. Ja sitten kaikki niin opettajat avasivat oven ja kaikki piti lähteä kotiin. Mä en osannut mennä, kun mä olen ollut koko ajan kotona. Ja sitten ison veden kanssa me yritettiin etsiä, miten voidaan mennä kotiin, että etsiä. Ja se oli aika vaikea, kun me nähtiin, että siellä soditaan ja tämmöisiä omin silmiin. Ja onneksi me sieltä jotenkin perheen kanssa me muutettiin sieltä pois ja pitkien tämmöisiä aika mutkikas tien kautta niin minä tulin sitten 95 tänne Suomeen, että mun perhe jäi sitten Suomeen. Ja sitten mä muistan, että oliko se Joensuu, missä mä en ensimmäisenä, että ne varmasti tiedätte, että kun nytkin on varmasti sama ilmiö, että yksi pieni poika niin kun lähetetään, että mun perhe jää. Ja se johtuu siitä, että pojat on paljon tämmöisiä helpompi uskaltaa lähettää kuin ne pienet tytöt. Ja joku sukulainen vie tai perhe maksaa jollakin, että se voisi viedä muualle, että jos vaikka muutkin ei jää henkeen, niin ainakin yksi on pelastettu. Se oli tämmöinen ajatus. Ja sitten silloin 95 kun tulin, niin mä olin sitten Berniössä muiden lasten kanssa ja siellä oli aikuisiakin kanssa. Ja sitten se olin 11-vuotias ja mä en osannut niin kirjoittaa, kun mä olin ehtinyt olla vain kuukauden koulussa. Ja sitten oli se kieli, mitä mä oon oppinut tai miten kirjoitan. Minun kirjoitustaito oli vähän, ei ollut ihan kohdallaan, vaan arabia kyllä osaisin kirjoittaa, kun on kaikki somalialaiset ja kaikki muslimithan on opiskellut Korania pienestä. Minä osasin vain arabiaa, mutta mitään somalian kieltä en osannut, latinan kirjaimia en osannut. Ja mä jouduin sitten aloittamaan alusta ja muistaakseni oli Aaponen. Oliko se Aaponen se pieni lastenkirja? Ja siitä mä lähdin sitten pikkuhiljaa. En ollut mitenkään ihan silleen, että en voisi sanoa, että mä olin ihan erittäin hyvä koulussa. Ja enkä sanoa, että minä olin erittäin huono koulussa, vaan olin ihan normaali. Ja pikkuhiljaa siitä aloitin ja sitten minut vietiin Berniön ala-asteen ja sitten pikkuhiljaa valmistavaa koulu ja näin. Ja sitten vaikka minä olin 11-vuotias, kuuluisin olla 5-luokkalainen. Mutta se oli niin, että kun ei osaa kieltä, ei osaa kirjoittaa, niin eihän voi vieläkään. Että pitäisi aloittaa kaiken alusta. Ja 6 kuukauden ajan olin siinä, kun minut on opetettu. Ja siellä oli erittäin hyvä opettaja, mä en muista hänen nimeä, mutta oliko se Ulla? Jos muistan oikein. Oliko se Ulla? Joo, hän oli erittäin mukava ja hän auttoi meitä aika paljon. Ja me jouduttiin laulamaan yötä päivään. Ja sitten kun ala-asteen, niin siinä mä aloitin muistaakseni, oliko se Tokalla. Ja vaikka mä olin iso, mutta Tokalle meni ja pikkuhiljaa aloitin opettaja koko ajan painotti ja minun piti opiskella ja ahkerasti tehdä tehtäviä ja saada kirjat nopeasti, että minä pääsin nyt sitten vuodessa suorittaa 2 luokkaa silleen. Se meni ihan hyvin ja sitten kun mä sain oleskeluluvan, oliko se 96 vai oliko se 95 loppupuolella, niin mä siirryin sitten Espooseen, missä oli lasten koti, tämmöinen perhekoti. Ja sitten siitä mä pikkuhiljaa aloitettiin koulu ja odotettiin, että vanhemmat tulee Suomeen ja näin. Sitten 97 vai oliko se 98, niin jostain syystä niin tuli tämä asia paljon mieleen edelleen. Jostain syystä tuli mieleen, että mä en halua mennä kouluun.
ollut semmoinen, että sitten kaikki hän yritti, että painottaa minut, että menee kouluun. Sitten minä sanoin, että selkeästi, että minä en halua jostain syystä. Koska koulukin ei ole mitään ongelmaa, opettajan kanssa ei ole ongelmaa. Mutta sitten taas joku opettaja, sitten mä menin sinne ja olin vuoden ja siinä ensimmäisen vuosi mulla ei ollut yhtään vaikea, kun mä oon lukenut aika paljon tämmöisiä lääketieteellisiä kirjoja. Mutta sitten vuosi sen jälkeen mä vaihdoin sitten Romaniaan ja sitten mä oon siinä valmistunut. Ja sitten sen jälkeen tulin tänne ja aloin sitten työskentelemään lääkärinä ja sitten sen jälkeen mä hain erikoistumisen minuutin hyväksytty ja nyt 2 vuotta mä oon erikoistuva kirurgina ollut. Ja sitten 1,5 vuotta sitten mun veljen kanssa me ollaan perustettu omaa lääkärifirmaa ja mä oon sen firman johtaja. Tämä oli mun story. Ehkä ei ollut kiinnostavaa, mutta se Laki oli kiinnostava ja niin kuin sanoitkin, me ollaan tunnettu jo 20 vuotta. En tiedä miten ahkerasti töitä on tehnyt, varsinkin kun yksin tullut niin tosiaan nuorena tänne ilman vanhempia. Että kiitos, olet kaikki meille kyllä tosi roolimalli tässä. Että kaikki ahkerat töiden jälkeen kyllä palkitaan aina. Kiitos. Mutta joo, tehdäänkö niin, että mennään vähän ohjelmassa eteenpäin. Musta tuntuu, että porukka on vähän alkanut tässä väsyttää. Eli pistetään nyt vähän somalilaista musiikkia tähän väliin. Sitten jatketaan meidän hienot näitä menestystarinoita. Et nyt meillä olisi varmaankin vähän ton aikaa. Okei, sheikana waxaan yarwan yara bedelna barnaamijka. Marka hadda waqtigii dhaantada weeyaan.
2 minuuttia, okei? 2 minuuttia, lupaatko? Lupaa mulle, 2 minuuttia. No niin, salaam alaikum. Olen aiemmin kertonut jo kuka olen, joten mieluummin nyt kerron vähän laajemmasta näkökulmasta. Suomen somalialaiset ovat olleet täällä yli 25 vuotta. Tarinoita on kertyneitä tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia. Ja jotkut niistä on koottu johonkin kirjoihin. Olen tuonut mukanani ammattilaiset kirja Suomesta. Tässä kirjassa on koottu noin 15 somalinuorten tarinoita tästä yhteiskunnasta. Ja en haluaisi sen kummallisempaa tässä viedä teidän aikanne, mutta halusin tämän kirjan osalta sanoa sen, että kannattaa sitä lukea. Ja olen myös saanut tietää, että tämä kirja käännetään jopa englanninkieleksi lähitulevaisuudessa, ja sen tarkoituksena on saada myös muihin Euroopan maihin näyttämään, että positiivisia tarinoita kertomalla ihmisistä tällä tavalla heidät voi voimaannuttaa. Tämän kirjan on tehnyt Kanava Nuoriso ry, jossa itsekin kuulun, ja tänään tuon Länsi-Suomen somaliseuralle ja heidän puheenjohtajalleen, turkulaisille ystävilleni kaikki, Abdulkadir Hadafu, Kanava Nuoriso ry toiminnanjohtajan sekä koko Kanava Nuorison hallituksen terveiset. Waa idin soo gaarsiinaya salaanta Abdulkadir Hadafu iyo urur Kanava idin soo diren. Waxaan sidoo kale idin sheegaya inuu jiro bug lagu soo aruuriyey sheeko ilaa 15 sheeko ama dhalinyarada waddanka Soomaaliyeed ee waddanka Finland horumarka ka gaartay sheekooyinka laga soo aruuriyey. Buuggan waxaa xataa la kulmay madaxda dadka Soomaaliya ka yimaada dad ka mid ah oo xataa dalbaday in buugaagtan loo soo bedelo luqadda ama Ingiriiska ah ama luqado kale oo la fahmi karo, iyagana markaas ay horumar kasii sameeyaan. Tämä kirja on nyt innostunut myös muistaakseni Suomen kurdiyhteisöön, muihin sullekin siinä mielessä, että tämä kirja positiivisien tarinoiden keräämällä ja niiden korostamalla me myös saamme tälle medialle vastapainoa, mistä tällä hetkellä suurimman osa maahanmuuttajista ja etenkin somalaisista tällä hetkellä puhutaan niin paljon negatiivisuutta. Ja me haluttiin näyttää Suomen yhteiskunnalle sen, että ei se tarina ole kyllä tällä tavalla, että niitä on onnistuneita. Meillä on kunnia jopa Abdi Wahid, joka oli äsken täällä puhumassa, ja hänen kaltaisia myös muita somaleja, jotka ovat täällä onnistuneita. Me toivomme kovasti, että tämän kirjan, jonka nyt olen tuonut mukana, se on täällä osa. Abdi Hamid on täällä ollut niitä jakamassa. Niitä on täällä, että ne voi vielä jakaa tähän vuokrakusodilta. Ja niitä voi myös tilata, jos täällä on niin viranomaisia, jotka haluaisivat tämän kirjan tilata, niin siinä mielessä. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee gadaal fadhiso ayaa rabaa inaan la hadlo sidoo laakiin xudiinku uu la hadlay. Qof walbo idinka kamid ah waddanka ku nool jaanis ayuu leeyahay. Jaaniskaagan waxaa imaan doonta maalmaha kamid in lagaa faa'iidaysto. Fadlan isku day in aad horumarka gaarto, horumarkan waxaad gaari kartaa inaad wax barato. Waxaan idiin keenay buuggan waxaa ka kooban 15 dhalinyaro ah oo ama iyagoo yar ama iyagoo markaas kuwa kamid ah intay ku dhasheen. Dhalinyaradaasna horumar waddanka Finland ka gaartay. Injineero ayaa ku jiro, dhakhtariin ayaa ku jiro, siyaasiyiin, media, dad badan oo kala nooc ayaa ku jiro. Marka waxaan dhihi lahaa buuggan akhrista, idinkana isku daya turkuhu inay samayso sheeko ama arrin noocan oo kale ah iyadana sidoo kale lagu muujinayo. Buugga waxaa loogu talagalay dadka finishka ah, haddii macquul tahay ninkaa u haystaa naga siin ninkaa u haystaa. dadka reer Turku waliba loogu talagalay dadka magaalada ka socda quraac ninka odaga ee dadkaas kale ka siinayso siin reer sigina naga siin reer sig hore baad buuqan oo ma sidii salaamu alaykum labadii sagaashan waxa ku soo qaatay tampre sagaashan labadii waan halkan imid horaanteedii sagaashan labadii markaan imid waxaan bilaabay isku dayay inaan waxbarasho jaamacadeed inaan helo jaamacadda Soomaaliya oo dhiganaya qabtay dhacday markaas bachelorka dhameeyay waxaan isku dayay markaan waxbarashada sii wato markaan halkan imid sina may suurtagal kale ahayn markaan suurtagal ma ahayn inaan waxbarashadii sii wato marka la fiirsho xaaladda ay waddankan uu markaas uu ahaa mise suurtageli karnin iyo documentskan wato waxa documents oo qoran oo rasmi ah jaamacad ka soo baxay oo la dhigi karo jaamacadda ma aan waxa watay liberato waxa la yiraahdo liberato waxa waaye waxa lagu qoro transcript lagu qoro ardayda
baadii xamdi dimaan iyo quudiga kaliya kaliya ku qoran waxay u qaatay 4 sano iyo jarjar inaan jaamacadda admissionkeeda helo 4 sano iyo jarjar oo sanad kasta aan application ka sameeyay sanad kasta aan raadinay dhowr department ku taala wadanka oo economics ku qortay economics aan markaas garanay sanadkii 95 baan halkan imid mar walba imaan lahaa 94 ka mid ahayd halkan ku yaan imid markaas aan imid waxaan markaa ugu professor jaamacadaha kulliyadaha magaalada ku yaala mid kamid jooga markaan waxaan u imid aan u sheegay wuxuu ii sheegay inaan xaq u lahayn inaan halkan wax ka barto wadankii uu gubanayo intaas wadankii uu gubanayo keliya inaan ku noolaa wadanka inaan xaq u leeyahay uu ii sheegay wuxuu yidhi waa suuriirin suurtagal waa inaad jaamacad noocaas filan ka heshid xaq uma lihid inaan kuu sheegaya waa tegaysaa mar dhow weliba baasaboorkaygu arkay oo markaas sanad ku dhufan jirta garashaha 3 bilood ka dhiman tahay 3 bilood ku dhiman wadanka waa tegaysaa marka ha isku mashquulin inaad waxbarasho heshid isla sanadkaas gudihiisa professor kale oo reer Turku ah laakiin markaas jaamacadda Faransa jooga aan la kulmay department economics-ka waxaan markuu arkay uu fiiriyey wuxuu yidhi waa xaaladda ku jirta waa garan karaa axsaan aan kuu sameynaya axsaankan kuu sameeya waxa waaye imtixaan aan kaa qaadaya imtixaanka aan kaa qaado haddaad ku baastid macnaheedu waxa waaye waxaan awoodid oo aad sheeganaysa sax waaye admissionkan aan ku siinaya haddii laakiin waxaan kuu sheegay aad weydid aysan sax noqon sax aad imtixaanka ku baasi weysid waa iska tegeysaa waxaan ku yidhi aad iyo cadaalad intaasina intaas weysid imtixaanka way galaad imtixaanka ku baasi markaasaan admissionka jaamacadda soo gaaray almost 4 sano iyo sanadkii kadib waaye 99kii marka jaamacadda master waxaan ka qaatay masterka kadib waxaan galay Hankin School of Economics meel yiraahdo ku taala Helsinki PhD aan ku sameeyay 2010kii economics hadda waxaan ka shaqeeyaa jaamacadda Helsinki qaybteeda social research-ka waxaan ka ahay cilmi baaris jooga waxaan filayaa 4 sano oo dadka asxaabta ilmaha Soomaaliyeed oo qaliilada islaayeen oo markaan ururada raadinaya jaamacadda waxay arkayeen waxa ka sii yihiin oo mission impossible maanta qof rabo inuu furo marka laakiin marka markaas aragno way gaar waxay walaal ayaan qaadaysanaa waa maanta tolo start ilaahdo waxaan halkan lagu sheegay inay imanayaan aniga markii la yaanayay macnaha dad dhalinyaro ah oo u baahan in loo sameeyo motivation laakiin dadka waxay u malaynayaan waa nimanba cimriga niman dhalinyaro ahay baa jooga marka waxa weeye dadka ka socda xagee ka socda marka motivationka in la gogaabiyo dhalinyarada la dhiirigeliyo baan u imi inaan aan u soo sameeyey report yar oo gaaban inaan siiyo lecture kaloo meel kale ka jeediyay marka motivationku waa maxaase lagu xoojin karaa macnaha waa rabitaanka qofku uu rabo in uu qabto waxaa lagu xoojin karaa markaas maxaase lagu xoojin karaa maxaa lagu xoojin karaa macnaha motivationku ama dhiirigelintu waxay kordhisaa rabitaanka qofka lagu rabo waxay kordhisaa inaad wax bilowdid initiation inaad wax bilowdid bay kordhisaa marka taas weeye waxay ku siisaa geesinimo inaad waxa aad rabtid inaad bilowdid aad macnaha ku dhiiratid wixii macnaha maxaad laga rabaa inaad samaysid marka si motivationkaagu uu u sii socdo ama xoog u yeesho ama dhiirigelintaadu ay wanaagsanaato waa inaad jirto gool waxaad rabtid inaad gaadhid wax kuu ah balaan inaad heerkaas baa rabaa inaad gaadho waxaas marka haddii ay hawshaas aad markaas ama balaankaad rabtaa inaad gaadhid ay hawl adag tahay ama ay u baahan tahay muddo dheer si aadan u nicin hawshii waxaa muhiim ah inaad qaybood u kala qaybisid sidaas baa marka waxay tahay sida kuu fududaynaysa in aad hawshii weyneyd markaad kala qaabgaadid ood qaybood u kala qaybisid ay kuu fududaanayso wixii waxyaabaha kale oo muhiimkaa waxa weeye markaad wax bilowdid wax kasta wuxuu waraysaa bilowdid dhibaatooyin iyo adeyg baad la kulmaysaa marka inaad joojisid maaha
waxa fiican inaad saaxiib la noqotid dadka loo ogyahay inay horumar sameeyeen ama waxaad markaa xiisaynaysay ay hore usoo barteen dhibaatooyinkay la kulmeenna aad ka waraysatid haddaad wax bilowdid ha joojin adkaysiga iyo dulqaadku waxa weeye horumarka waxaas iyadaa lagu gaadhaa mararka qaarkood waad ku dhacaysaa waxaa laga yaabaa imtixaan baad ku dhacaysaa maadaad rabta inaad jaamacadda u gashid waxaa laga yaabaa 2-3 sano haddaad ku celisid inaad ka dambabaasta marka maamaaygarsa waxay tahay no one wins as a win cidina sida guusha uma guulaysato marka waxa weeye haddaad wax ugu horeysa ku dhacdid ama aad ku baas weydid waxaad rabtay micnuhu maaha inaadan waxba ku fiicnayn waxay rabtaa muddo iyo akhris iyo dadaal dheeraad waxbarashada iyo dhiirigelinta macnaha qofna adduunka inta la garanayo waxba kuma guulaysan haddii uusan waxaas wax niyadiisa ku jira ay tahay had iyo jeer uu ka fikirayo had iyo jeer uu akhrinayo had iyo jeer uu la tashanayo cidda waxa isaga ka badisa macnaha inaan barano laftigeeda qaabka maaragtay wax loo barto baa iyada laftigeeda muhiim ah marka maanta waxaan ku jirnaa information technology waagii hore way adkayd library inaad adaa lagaa rabaa laakiin maanta wax kasta computerka ama telefoonkaaga baa information kasta available yahay waxaadna moodaa iyadoo ay saas tahay dhallinyaradeenna tirada wax barataa inay aad iyo aad u yar tahay iyadoo maanta ay wax kasta aad iyo aad u fudud yihiin waxa aan ognahay sidaan hore u xusay we must learn from failure markaan dhacno waa inaan wax ka barano oo ka bacdi dib u kacno oo ku celino laakiin inaynu hadho maaha macnaha qof kasta oo horumar gaadhay marar badan wax badan buu ku dhacay ama dhibaatooyin badan baa ka hor yimid oo ku noqotay mashaakil laakiin muddo ka bacdi wuu guday dependency inaad cid ku tiirsan tahay oo aadan madax banaaneen mar kasta ama waalidka ha noqoto ama dowladda ha noqoto sida dadka maaragtay socialka oo kale haddaad lacag ka qaadatid mararka qaarkood aad iska dareentid inaadan ka maarmi karayn oo aadan ka madax banaanaan karayn taa laftigeedu waxay kaa dilaysaa motivation waxay kaa dilaysaa self reliance inaad isku kalsoonaatid oo in isku filan noqotid bay kaa liidaysaa markaad ogaatid waxaad ku fiican tahay marka qof kasta waxbuu ku fiicanya dadku isku mid maaha ilaahay qofba waxbuu ku wanaajin markaad ogaatid markaas dadaalkana la timaadid wax iska hortaagaya ma jiro soo ogow marka ugu horeysa waxa adigu aad ku fiican tahay qof baa makaaniga ku fiican qof baa electriga ku fiican qof baa dhakhtarnimada ku fiican qof baa engineeringa ku fiican qof baa kamarada inuu qaado ku fiican qofba waxbuu ku fiican yahay oo jecel yahay wuxuu xiiseeyo marka hadduu horumar wixii uu ogaado wuxuu ku fiican yahay siina horumariyo markaas ummadda macnaha meel fiican buu gaadhaya waxaan ognahay saaxiibadu saameyn bay ku leeyihiin waxaa la yidhaha idoliska macnaha qof aan ku daydo oo ah dee tusaale ii ah marka macnaha markaad qof karti inaad ogaatid baa la yidhi saaxiibadiis baa la fiiriyaa waa maahmaaha weeye waxyaabaha dadka aad taqaanid acquaintances dadka aad taqaanid adduunkoo dhan bay buuxin karaan laakiin saaxiibada runta ah waa tiro yar weeye saaxiibada dhabta ah taasaana muhiima mahmaygasa waxay tahay your bookies and friends should be few and good bugtaada iyo saaxiibada waa inay yihiin kuwa yar oo wanaagsan dharka waxaa la yidhi kuwa fiican baa wanaagsan kuwa cusub baa wanaagsan laakiin saaxiibada waqti hore aad istaqaaneen ama old friendska baa fiican markaad saaxiib cusub samaysatid albaab baa kuu furmaya markaad saaxiib aad lumisidna albaab baa kaa xirmaya oo mahmaah kale wax kastoo aynu haysano ama ilaahayna siiyo waxa ugu qaalisan saaxiibada ilaahay baa ina siiya qaraabadeenna laakiin innagaa saaxiibadeenna doorana taasina waa mahmaahaha bay ka mid tahay marka laga hadlayo waxaas mahmaha saaxiibada ku saabsan waxaan usoo qaaday inaan idiin sheego saaxiib inuu wax aada u muhiima yahay oo saameyn ka samayn karo nolosha qofka if there is a will there is a way rabitaan haddii la jiro jid baa la helaa ridaas anaa sawirka ka soo qaaday soomaaliyaan hadda tegey I just amazing macnaha ridaas baabuurkaasay fuushay riski bay qaadatay afarteeda lugood meeshaasay saaran yihiin ubaxaas bay cuntay kuwii kalena albaabkay garaacay waxaan rabaa in dad wax la siiyo albaabka laga furay rabaa marka ujeedadu haddaadan waxaa isku dayin meesha ma gaadhaysid marka
Waa mahadsantihiin. Sompujen puolesta tehty. Siis musta on tullut Turussa ensimmäinen tummaihoinen somalilaisena muslimina Mäkin työntekijä. Mä olen siis keittiössä McDonald'sissa ollut ensimmäinen tummaihoinen 98. Ja se, että muistan, siinä tuli toimittaja. Joku toimittaja selvitti sen, että siinä on musta mies Mäkissä. Ja sitten se selvitti, että kuka minä olen. Ja selvitti sen, että Turussa ei ikinä ollutkaan. Ja sitten hän tuli sinne ravintolaan Hansassa. Sitten se sanoi näin, että hei, saanko ottaa sinusta kuvan? Mulla oli iso afratukka, essu päällä. Ja pisti hampurilainen tässä mun kädessä. Mä laitoin toisen käsin se ihan oikeassa, se laitoi tarjottamaan. Ja se mitä tapahtui, se otti musta kuvan. Ei se edes kysynyt yhtään. Seuraava päivä on ollut turkulaisessa lehdessä, että Wali Hashista on tullut ensimmäinen tummaihoinen asiakas Valkossa. Mun urani jatkoi sitten vielä eteenpäin. Musta on tullut ensimmäinen tummaihoinen somalilaisena partija. Täällä se kuitenkin. Ja se on totta. No, miksi mä kerron tästä on se, että kun kerran puhutaan nuorille ja mitä heidän pitäisi, ennen kuin mä menen mun toimintojen työstä, vaan kun mä olin partijana jossain kaupassa, ihan oikeasti, mä muistan, mä olin melkein parhain näitä työtä, mä olin niin kuin tosi hyvä työntekijä. Ja se johtuu siitä, ei pelkästään se, että mä olin hyvä työntekijä, vaan koko ajan mä ajattelin, että mä oon somali täällä, mä oon musta, mä oon muslimi, ja sä teet 2 päällekkäin työtä. Hyväksymistyöt niin sanotusti, ja sitten siitä, että sulle hyväksytään ylipäätään se, että sä oot erilainen. Ja sitten sun pitää myös tehdä sitä työtä. Ja täällä istuu porukka, joka on kertonut tätä tarinaa. Sitten kun mä lopetin tätä vartijatyötä, niin mulle sanottiin, että voisiko löytää meille joku somalilaisia työntekijöitä. Eli teillä kaikilla on vastuu siitä, mitä muutkin. Että te ette ole pelkästään henkilönä, vaan sä edustat kansaa ja ihmiset ja kulttuuria ja ihon. Eli aina pitää ottaa huomioon. Tää on se, miksi mä kerron tästä. No, mä en mene enempää sitä. Olen tehnyt toimittajatyötä 15 vuotta. Itse asiassa mä en ole varsinaisesti opiskellut toimittajatyötä. Mulla oli 2 vuotta Pääsykouluopistossa salainen kurssi, Medium-kurssi. Ja olen sieltä aloittanut kirjoittanut artikkeleita ja menin Afrikkaan tekemään dokkariohjelma. Ja tein itse asiassa musta dokkariohjelma sen, että miksi tämä somalipakolainen lähtee pakolaisleirille ja katsomaan siitä hänen oman kanssa ja niin edelleen. Ja sieltä alkoi sitten, kun kaikki tiedätte, Ossu oli vieraana ja Habib oli vieraana ja Jambo-ohjelma nykyinen porukka kutsuu Jambo mieheksi. Ja tämä ohjelma on ollut 7 vuotta pyörinyt täällä Turussa, kaikki varmaan tiedätte. Ylellä mä oon tehnyt 5 vuotta ja 5 vuodesta olen tehnyt 45 ohjelma. Ja Silminäkijä Mot, Ajankohtais 2 ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta todella mahtava nähdä täällä, esimerkiksi meillä on täällä lääkäreitä, aivan mahtava, joka on lääkärihän se toimitsijasta voi tulla ilman opiskelua, mutta lääkäristä ei tule. Siis he joutuvat tekemään todella paljon työtä. Mä arvostan niin paljon Artelille ja toisen Abduahit. Nuorilla, kun on puhuttu, toivottavasti te saatte tästä irti, että teidän vastuu on meiltä kaikille. Kiitos oikein paljon. Mau perhatian liittyy cuma. Thank you. Sorry, joo. Eli mennään tänne eteenpäin tämä meidän ohjelma. Meillä tulee seuraavaksi tämmöinen team-räppäri Turusta. Esiintyjänä on Abdirahman Mohamed Ubaid ja Ville Niemen. Tervetuloa. Joita sanoin piti vähän niin kuin sensuroida, niin ei ole
sitten niin hyvä varmaan heittää tällaisen vastaan. Sen takia oli vähän katkosta. Okei, eli nyt seuraavaksi tulee vähän rauhallisempi biisi, mikä kertoo niinku siitä, että se liittyy oikeastaan siihen, mitä tärkeintä on nuorilla se, että nuoret tekee jotain, eikä vaan tuhlaa niinku aikaa koulupäivän jälkeen. Löytyy niinku muutakin kuin postarin hengaileminen ja ilkivalla tekeminen ja tämmönen, niin se on niinku meidän mielestä tärkeää, että nuoret tekee niinku jotain. Varsinkin jotain, mistä ne oikeasti tykkää, intohimo tähän, eikä tunne painostusta siitä. Että tämä biisi vähän kertoo, että niistä asioista, kun tuntee perhe tai koulu tai valmentaja tai joku painostaa, niin ihan ylipäätään niistä. Tärkeintä on niinku aina pitää kiinni siitä omasta jutusta, että harrastukset, oli se sitten jalkapalloa, musiikin tekeminen, ihan mikä vaan, niin se on niinku aina tärkeää. Ja tekee siitä itse nauttia. Joo, semmonen kappale esitetään seuraavaksi. Joo. Okei. Vaikka hommat menis tähän niin tai näin väliin, aina pitää muistaa pitää pää pystyyn. That's the right. Jo keskellä arkea, jo keskellä kirkellä paineen alla soo keskessä niille kaikki vaiket edes käynyt hetkessä niille hommat ovat tuottaneet pallolleessa siiveet kalenteri täynnä ysistä ite näinkin voi käydä ainakaan itselleen ja ennen oli arvokuskaan voisi eteenpäin ennen näin kuskaan kun likerää rapi mustaan valmistelle rustaa niille jotka jeesua kädet ylös arvostusta jos ollaan menis vähän niin tai näin älä väli kaikki käänty väki oikein päin pääasis on se et on vieläkin elo se on vieläkin elo tiedäkin mitä oikein näin kun pallo jonas pois oikeesti mitä sitä sillä takas en oo menossa Kiitos. No, tää on vähän radikaali kautta yhteiskuntakriittinen biisi. Jotenkin koulussa on opetettu kriittisiä ajatteluja, joten me ollaan vedetty tähän vähän liian pitkään tää. Mutta tää biisi kertoo vähän vapaudesta. Henkisestä sekä fyysisestä. Ja omasta henkilökohtaisesta vapaudesta ja ylipäätään kaikesta vapaudesta. Ja tää biisin nimi on kaikista kallein sen takia, että yleensä te tiedätte rappibiiseissä kaikista kallein on kultakorut ja hienot citymasterit ja tämmöstä, mutta se kaikista kallein asia on kumminkin loppujen lopuksi vapaus. Eli se, että on vapaus uskoa, mihin haluaa, tehdä mitä haluaa ja se, että se on niinku ehkä tähän iltaan niin kaikista aiheeseen liittyvin biisi. Ja sen lisäksi, että Somalia on tässä taustalla, että vaikka meillä on itsenäisyys, mutta silti meidän veljet ja sisaret siellä näyttää olevan kahleissa. Paljon vaikutus opettajilla on ja mun on pakko sanoa, että mun ensimmäinen ekaluokkalainen opettaja on tänään paikalla. Tossa on Hanna Meriluoto ja hän on ollut mahtava opettaja. Aks tulla? No niin, sä voit ehditä. Mutta joo, Hanna on alun perin turkulainen, mutta Espoossa hän oli mun ensimmäinen ekaluokkalainen opettaja. Mä en ikinä unohda, kun Hanna muut oppilaat kiusas mua siitä, kun mulla oli se Turun murre oli. Eikä yhtään, että mä oon somalilainen tai jostain muusta, niin Hanna aina oli vaan, että antakaa olla, täällä on vähän enemmän meikäläisiä, kun Hanna itse Turusta kotoisin. Joten kiitos, on tosi kiitollinen sulle siitä. No niin, päästäänkö eteenpäin? Hyvä, tervetuloa. تحدي والبولة
haddaan ku dhawaaqo ereyadaas oo aan qaldo ilaa qof baa qaldi karaa mugta laakiin waxaad ogaataa qofka dusan dhaqaaqi waxba ma qaldo hadduu iska fadhiyo qofku wax ma qaldo markuu dhaqaaqo laakiin qof kale qalad waa kala haddaan qalad galo macalla yaan qaladkayga leegu qaadan oo leegu qosin waa iska dhaha laakiin hadda baa sheega huwa ilka huwa ilka olen iliromen eta olen teidän kanssa sama julha طبعا هذا waxaan ka wada waxa waaye yani haddii aad rabto ummad inaad dhex gasho aad barato ummadaasi waxay ku qanci kartaa ama ku farxaysaa keliya markaad sugaanteeda ama ereydeeda oo kaleeto luqadeeda wax ka taqaana intii yaroo hadda aan sheegay oo afkaan aan ku hadlay inkastoo aan aqoon aniga laakiin waxay ii furaysaa waddo ah in xoogaa aad dhegaysataan dhegaysigaasi marka wuxuu keeni karaa xalan ka hadlay marka arrintaan anigu shalay markaan hadlaya waxaa ku jirtay ereydeeda ku jiray haddaan rabno ummadda inaan dhex galno waxaa noogu filan wax la yidhaahdo inclusion concept ayaan soo qaatay yani waxaan soo qaatay fikradda isku dhafnaanta oo dadka la isku dhafnaanayo marka ummaddaas waxaa habboon in la yidhahdo aan wada hadalno let us talk laakiin haddii aan rabno inaan wada hadalno maxaan ku hadlaynaa su-aasha taasu waxaan ku hadlayna maxay tahay waxaan ka hadlayna ama waxaan ku hadlayna maxay noqonaysaa marka waa inuu jiraadaa buundo isku keen xiri karto anigii ummaddaasi buundadaasoo marka labadan isfaham laga dhex abuuri karta isfahamkaasna wuxuu dhalin karaa inaan isku soo dhowaano oo waxyaaba xataa mashaakil dhexdeeda ku jiray aan xallino taa macnaheedu waxay tahay nin yani mataqaanaa oo scholarska ka mid ah ayaa wuxuu yidhi haddii aan rabno yani anaga waxaan idhahdaa qofkaad sirtiisa bixin weyso saaxiibkiisaa la leeyahay saaxiibka aan leenahayna maanta marka halka aan joogno waxa weeyaan dadkaan martidooda soomaalida marka laga saaro laakiin sin qofkaas sirtiisa u ogaano waa inaan sugaantiisa afkiisa iyo dhaqankiisa aan barano haddii kale qofka ma ogaan karti inuu hadalka sitarbaab kugu dhiibay iyo inuu hadalka mataqaana ku caayay ma kala garan karti sida soomaalida tiraada waxaa tira lagu yiri ay kusoo ururaysa arrinta marka waxba garan karti ma marka waxaan rabaa qodobka la siiyey oo nahay inaan ka hadlo waxay ahayd mustaqbalka dhalinyarada soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed ee qurbaha usoo baxay sidee baan mustaqbalkaasi aan ku abi karnaa aan ka dhigi karnaa mustaqbal aayatiin leh oo dad qof waliba meeshuu ku nool yahay uu la qabsan karo ummaduu la joogo marka arrintaa hadda caawa aan dhegeysto dhan markaan nootooyin ka qaatay waxaa ii soo baxday qof waliba wuxuu leeyahay sida wiilasha hadda oo raabka akrinaya weli iyo saaxiibadiis oo kale waa dhegeystaan waa la ii sharxaya ma garan afka laakiin waxaa lagu sheegay inay ka hadlayeen waxa la yidhahdo xorriyadda hadalka freedom of speech ayay ka hadlayeen inta badan xoogii saas oo kale ay ku soo celcelinayaan raabka marka freedom of speech haddaad rabto inaad samayso waa inaad wax qortid way haddaad rabto inaad wax qortidna waa inaad wax akrin kartaa haddaadan wax akrin karina haddii waxaad garanaysa ma jiraan iqra waa lagu amray baa markuu gorayso aqri يعني أقرب معناه ده ما يروح وحبره إنا وحبر تدور قفل وعاوة هذا الشيء وحي كان لسه إنا وحبرنا سي أن مدخلنا يدي لنا ما يتين كان رجال مركز صحاب قصة هذا الخبصة ده بربارتي أنا من تبادلني كلها سجانها نوع هانجري أقول هذا مركز سيسيف عم بيجي دقائق سي هو صار عن هذا ما سنتر waxaan ka wadaa marka hore ninkaas barso axmed nuur yuusuf oo habeen dhow xali shal garan ku soo qaatay waxyaabaha uu ugu soo canqari jiray waxay ka mid ahayd badownimo waa balaayo waa baaba buuladiis yani buura waxuu ku yaraa tuulada meesha ku jirto badownimo waa balaayo waa baaba buuladiis ummadduu ku bataa ma badato baahiya bugtana kama baxayso يعني واحد كنت جابا لكن حكمت بين حبارتي وحكوا سوقنا لنا مرك وحبرت عن برواخة جابا
arrintaas anigaan idinla hadlay ayaa ku luqeyn jiray markaan dhalinyarada ahaa. Markaan dhalinyarada ahaa anigaa ku heesi jiray. Ma fahamtay marka? Yani taariikhdu waa soo jireen oo markasta dib kuu celinayso. Yani markaan da'dan jiilkan maanta soo korayaan joogay waxaa la isku guubaabin jiray war waxbarta aan barwaaqo gaarin. barwaaqada aad gaaraysaa ma aha barwaaqo lacag maaha, waa barwaaqo maskaxeed. barwaaqo maskax waa mar haddaad wax barato maskaxdaada way buuxdaa, way dhisan tahay. waxaad ku soo baxaysaa meel kastoo goldoleel ka soo baxa inaad buuxin karto. marka annagu dhalinyarada waxaan nidhahnaa marka xagga joogno ama cilmi baarista markii la sameeyo ku badan tahay xaggeeyay baruurta ka qurusan tahay. waxay ka qurusan tahay aqoontii aan lagu yidhi. aqoontii marka waxbarasho u baahan tahay bulshada deenishka aan la deganna midama dhib yari dhib badan waa qabnaa laftigeena dadkeena xagga loo haynoo keeno midabka, haynoo keeno jinsiyadda meeshaan ka nimid, haynoo keeno luqadda aan ku hadlayno, haynoo keeno aqoontaan oo lagu gaaban barashadooda aynaan baranin. haddana laakiin saas ay tahay dad badan baa inta iskalifeen oo xadla qaadeen oo sida hadda maanta doctora halkaa ka hadlaya iyo ninkii wariyihii maasha allah oo isaga markastaba yani isku dhafaayay inuu naga qusliyo isla markaasna noo gudbiyo wuxuu isaga rabo maaha waxaan rabaa wuxuu rabo noo gudbinaya ninka. hadalihiis waxaa loogu sharxo ku jirtay anoo timo leh baan imid maanta uu yiri maanta caawana timo ma leh. xikmad weyn baa ku jirta ogow. yani asoo timo leh buu yimid dhalinyaro ahaa markaas maantana timo male markee wax buu soo bartay waa soo shaqaystay timihii waa haadaan. timaha marna da' bay ku haadaan marna waxay ku haadaan fikir. marka asaga dadka fikirka ku haada ay ugu muuqdaan dadka da'da uga haada kuma jirta. marka dhalinyarada marka anigu waxaan imaataa hadda waxaan joognaa xilligii oo aan islahayn garaafkiina waa soo dega hoos u soo socda. waxaa kaliya nagu soo haray waxa waaye marka yani hadalka inta ugu qiimaha badneed oo la dhihi lahaa ama la oran lahaa qofku oran karo dadka halkaas soo istaagaa wada qaatay. wax noo soo haray inay jiraan uma haysan anigaad markaas soo istaagay. hadda kor khisiyaar haddaan idiin sheego nin la yidhaahdo xaaji arbacow oo shangaani deganaa waagii oo tashinada ay shidnaayeen ayaa waxaa lihi xaaji soo istaag khudbay baa lihi. marka niman ka aftahansan baa ka horaya isaga marka niman asaga ka aftahansan baa khudbada kala horaya. marka xaaji arbacow wuxuu yidhi hadday khudbo dhegeysta hadalkeeda hadday khudbo qiima iyo qaaya ay leedahay ya xaaji khurmoon bashir khuslaayo hore u qaateen. yani hadday khudbo qiima iyo qaaya leedahay ya xaaji khurmoon iyo bashir khuslaayo hore u qaateen. laakiin anigu qodobkoo yar oo qashinka khuseehan iyo khuseehan dadku waa dhegeysanaya marka wuxuu yidhi jaalayaal marka jaalanimada markaas kelmad aad u cusbay jaalayaal qashinka hala qaado qashin qubka hala geeyo hala soo qubo tarakh ha lagu qabto qaac ha laga keeno. laakiin haddii qashinka la qaadi waayo qashin qubka la geeyo waayo lasoo qubi waayo tarakh lagu qaban waayo qaac laga keeni waayo khasaarada ka timaado hortiina marka ninkaas sheekada wuxuu ku soxay. hadda waxaan idin leeyahay nimankiinaan oraa turku ama finland odayga hadda uu hadlaayay oo mas-uuliyiinta magaalada ka mid ahaa ulimania magaciisa ku yaal halkan. ulimania hadal qiimo badan buu ku hadlay. waxaad joogtaan magaalo 1000 sano jirto, waxaad joogtaan magaalo aflaaqa leh. aflaaqa yani qoriga markuu aflaaqa leeyahay fargina laga samaysan karaa wax kastoo lagu tuuri karaa. magaalo aflaaqa leh baa joogtaan, 2 af baa ka shaqeynaysa magaalada. magaalo cilmi baa joogtaan, jaamacad baa ku taal. 1998 markaa imaanaya turku waan ka soo qaybgalay Somali Studies Congress. iyo maanta markaan xoogaa inkastoo mugdi aan ku soo aaday magaalada aan fiiriyey wax badan baa iska keen bedelay. xiise kale ay qaaday dhalinyaro fara badan Soomaaliya, dad wax bartay, dad jaamacad ku jira, dad oo waxbarasho ku sii jira. inkastoo statistically tirakoobkii Dr. Cabdirashiid uu noo keenay xoogaa yar ina taabato in marka karbaash lagu dhufanayso, laakiin waxay joogtaan magaalo aflaaq leh. fursadda inta ka weys xaggaad ka qaadan kartaa sida hadda yarkii ugu dambeeyey uu sheegayo kale. wuxuu yidhi haddaad ku weyso afka maxaa la yidhahdaa haddaad ku weyso finishka waxaa ku qaadan kartaa finishkaa ku qaadan kartaa
fursadda loo dhinac waa furanta akhlaaqay leedahay arrinna mar haddii akhlaaqa leedahay dhinac looma dhinac kastaad u mari kartaa meesha doontaa ka qaadanaysaa marka waxaan leeyahay magaalada soo kun ka sano jirto oo haddana ku taalo siduu hadalkiisa u dhigay ninka odayga hadlaya wuxuu yidhi yani webi baa ku yaal magaalada webigaa la yidhahdaa weli anuu saada ku fahmay saaxiibkaas si fiican ugu sharxaayay wuxuu yidhi sharafta wadamada kala duwan ka yimid akhyaarta aqoon-yahanada master xarako ugu horeeya oo nooga yimid wadanka dibaddiisa profesorada dadka waxbartay dhalinyaradan soomaalidu waxay tiraahdaa dabki baxaba ilaahay wax noogu daro dhalinyar raad dheelaysa caawa joogto kuwa dhaanta waaba lahayn kuwa raad dheelaya haddii aan helnay oo nin finisha wato waxay caddaynaysaa in aan wadanka soo bawtumana ku suubinay akhyaaray dhammaantiinba salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caawa intii dadka khudbaynaysa arrin ay hilmaantay ayaan rabaa inaan idiin sheego maanta waa maalin muhiima hubaan isaan baahitay ninkii aabba ah iyo ninkii ku soo socda jidkaba caawa waa habeenkii maalintii aabbaha waddankan Finland maalinta hooyada dhaqanadan oo hadda aan ugu nimid waddamadan waxyaalaha aan rabnay inaan la noqonno oo Soomaalida ka dhaadhacsiino oo dowladda Soomaaliyeed ee meeshaas ka jirto geeska Afrika ka jirta aan dhahno bal noo sharciyay oo waan nimid waxna ma wadno waa ceebe at least maalinta aabbaha iyo maalinta hooyada wax dhib ay keenayaan ama diintana kama soo horjeedaan kuma jirto umaleyn alaas marka bacda salaam aniga waxaan ka socdaa ururka Suomen Somalialaisten Liitto la yiraahdo waa kato yaraysto waxay matashaa wadanka Finland oo dhan ninkan aad isleedihiin dhalinyaro waaye awal waxa ugu wadataan odayaal hadda cilmiga loo wada tagay aniga insha Allah tasanan jira marka ururkan hadii ilaahay waxaan soo galay 90kii daada meesha la ka qiyaasta dugsi sarana waa soo dhameeyay marka alxamdulillah maadaama turku la joogo caawa turkuna laga hadlaayo horta martib sharaf badan ay noo joogto iyo khiyaar gudoomiyaha ururka Suomen Somalialaisten Liitto wuxuu ka yimid turku waxaa la yiraahdaa Arshe Saciid oo Muuse waana nin bartay cilmiga macnaha warshadaha chemistry warshadaha kuna shaqeeya kana faa'iideystay arrintii oo xarako uu sheegay arrimo badan aan rabaa in aan macnaha aan dul maro tareenka 2 saac iyo 20 baxayna ku jira si ciyaal xaafadan u hadlaaya aan isfahan haddii ilaahay yiraahdo horta waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa gudoomiyaha ururka Suomen Somalialaisten Seura erga Somali aniga wax yar oo si ii dhibaa ha u arkin xumaan erga Somali macnihiisu waxa waaye kieli obilisesti luqadda Finniska haddii la yiraahdo waa maxay erga Somali macnaheedu waxa uu sheegayaa kansalisuus annagana waxaan la weydiinayo waa kansalisuus keena waa Somalialainen hadda ganaado Ethiopia hadda ganaado Djibouti hadda ganaado Kenya hadda ganaado Somaliland hadda ganaado Soomaaliya hadda ganaado Great Somalia oo dhan waxaa la yiraahdaa Somalialainen luqadda Finniska aad iyo aad aan u bartay waagi naxwaha siiba maadaama marka erga Somalialainen isticmaala erga Somali luqadda Finniska baate waa inuu noqdaa wadanka markuu leeyahay calan iyo laga aqoonsan yahay United Nationska luqadda Finniska waxaa lagu yiraahdaa Somalialainen Australialainen Brasilialainen Italialainen waxaasoo dhan yaa lagu dhihin waa la soo gaabsanay waxaan buugeeli ma ahan dad dhan waa sharafku haddii la yiraahdo Somali macnaheedu waxa waaye in la yiri qofkaas wadanna ma leh meel uu ka soo jeedo ma leh waxaan idinku cadeynayaa haddii la yiraahdo basket anagu jabhad mani basket waa jabhad iso Britania wadan la dhaha ma jirto Arabic waay sababtoo ah dad wadan Arab la dhaha ma jirto Kurdid waay Albaniyada degan Kosovo was Albanid waay laakiin kuwa Albania oo Albania degan
marka dadka ha naga reebina facin ha naga reebina ee laynanka lagu dara ururka Somali Liito waxaa la dhihi jira Somali Liito ninkii 6 sano murmaaye kadibna ay u soo baxda tuloska Somalia laystan Liito macnaha hadda akhyaartan la raamsanaa akhyaartan ku dhex jirnaa anaga reebina Somalia line isticmaala rag akhyaar waa ujeedaa oo reer Turkiga oo calas ka mid yahay muxudiin uu ka mid yahay meelo badan aan isku aragnay caawa intii macnaha la sheekeynayo dhan Turkiga la joogay marka si gooni inaan u faano ma rabo ana iskiin baraayo ninkii ugu horeeyay oo ajnabi oo wadanka Finland siyaasi ka noqda aan 96 هل هيسكي وحو يانة ستيفستو مركا سومالي ودنا هذا ودا جوغنا مركا 8 سنة aan joogin ragga hadda siyaasiyiinta la hadlaaya geed iska kor saaran oo ay ka tagay ninkii ugu horeeyay sida aadan cadde siyaasadda ka dagan saaxiibada indhaha igu gubina siyaasadda waxa waaye si loo yiraahdo yaaska wuxuu ahaan jiray siyaasadda ka baxay u baneeyay akhyaarta sharafta yaa la isku adkaynin meesha beledka adiga kaliya mali midda labaad oo aan rabo hadeertan waxaan helnay Soomaaliya Liito barnaamij waxaan helnay haddii ilaahay yiraahdo looga hadlayo cunsurinimada waxaan ka helnay hay'ado waaweyn oo adduunka ka mid ah waxaana lagu siiyay qarash waxaa mas'uul nooga ah walaalkeen ilaahay qarash siiyay Maxamed Ahmed Bashiir Abdulle oo ah qasnajiga ururka arintaas ayuu qaabilsan yahay rag reer Turkiga ka mid ah ayuu u soo diri doonaa Finland cunsurimo ku aragtay taas la isweydiin maayo ka jawaab marka hadii lagu dhaho ku aragtay ha ama maya hadduu adiga aad 9 soo gashay oo gurigaada la ku turtay oo alabada iyo gurigaada la u dhaxayso cunsur ma aragtay marka qofka cunsur aragtay iyo say u aragtay anaga u soo sheegi doono emailada kala qaado doona hadda gudoomiyaha jaaliyadda hadii ilaa yiraahdo walaalkay saaxiibkay nina kor iska arki jirnay le waayo dadka dhan kor iska arki jirnay marka waxaan idin leeyahay soo dhawaada Somali Liito meeshaas idin joogta xubinta ugu sarreysa oo edna la yiraahdo idin kugu jirta xubin aan ka nahay waa hay'adda ugu sarreysta arrimaha ajnabiga laga soo saaro waa dadaalna waa hadalna waa buuqna ummadda Soomaaliyeed isku dhaweyna sports waan nahay fadhi ku dir waan nahay meel kasta nahay Arkios yaa wuxuu leeyahay hees la yiraahdo Kaiki Ka Arkios ki Kaiki Ka waa minuskis marka Soomaaliyeed Kaiki Ka waaye marka ka soo qayb gala heesayaasha waa soo dhaweynayna walaasha ka timid wadanka Norway hadii ilaahay yiraahdo walaasha Xabiibo markay soo galayso isku faca ahayn hadda waa iga dheeraata leemaa marka insha Allah waxaan mar labaad leeyahay aabo maadaama caawa dadka dhan ee xoogaa yar ay dadka dhan jacjuur yihiin oo adag yahay marka waa soo dhaweynaya caawa alxamdulillah waxaan ku arkay meeshan Muxudiin Cabdullaahi Ducaale Geel Cabdi oo aan dirsahay bandiiradna iyo ka yimid xoogaa yar odaga asoo markaas xoogaa la soo galayo dawladda Maxamed Siyaad ay soo gashay nin dhaga bacayr la yiraahdo muxuu ka hadlayaa dhahay isagoo gurigayga saqafka ka qaad macna ma laha hadda cid aan jeclahay oo ka dhashay oo aan darisahayn oo la dhihi jiray mudugta reer baare macnaha ugu bixin waxay ahaayeen 4 guri ahaayeen markasta waxay ka imaan jireen bandiirada iyo xadagaari marka nin oo yaqaanaan ahay waagaas barasho wanaagsan insha Allah hadii ilaahay yiraahdo haddana waxaan rabaa inaan af Soomaali finisher ku sheego mina olan Soomaaliya laystan Liiton halli tuksan marabu heeyohtaya Soomaaliya laystan on lahes kaksukumenta tuhatta Suomessa koska kohta on tullut melkein meikäläiset on tullut kun suurialaiset ja arabit on tullut miksi ei meitä Suomi on meidän toinen maa ja täällä ollaan ihanasti rasismi kuuluu meidän elämään tämä ei ole minkäänlaista joka päivä elämää kuuluu että joku sanoo että hei sinä se tarkoittaa jotain ja mä sanon
meillä just tänään sanottiin, että me olemme parkkeeranneet jonkun paikan siellä Moskeijan lähellä. Joku tuli, hänellä oli 2 lasta. Se oli todella valitettavaa. Hän tuli kertomaan meille, että minkä takia me ollaan tekemässä väärin. Mä sanoin, että tämä oli oikea paikka, mihin me voidaan laittaa. Miksi sinä tulit meille kertomaan tai ilmoittamaan sen, minkä takia me voidaan tehdä? Mahmoud oli mukana. Ja hän sanoi, että tämä on se, mihin ihmiset tappataan. Ja teillä on tapana tappaa ihmiset ilman syitä. Mä sanoin, että tämä on parkkipaikka. Ja mä sanoin ihan huumorina, että tänään on hyvä isänpäivä. Sitten hän hymyili ja se lähti. Mutta meidän tarvitaan hymyä puhumalla asiaa selvittää, ei nyrkillä. Tämä on meidän tulevaisuus ja mun mielestäni 3 sana suomalaista on saman lopuksi on. Jos halusit elää ja olla Suomessa, pitäisi olla 3 kohtaa. Tämä on joka paikka mä oon kertonut. Se on koulutus, kulttuuripääoma ja karisma. Koulutus tarkoittaa, sinun pitäisi kouluttautua, että pärjäät sen Suomessa. Sinulla pitäisi olla kulttuuripääoma. Kulttuuripääoma Soomaaliya aan ku sheego wax yar iga ralahaw waa macnaheedu waxa waaye ra'iisul wasaarahan qaraabanahay macnaha heer qataraan ka dhashay cirkaan ka dhashay qofna ma joogto meesha u jeeda jananna ma qabno Sun pitää puhua suomea, sä taas käänsit. Aivan, mutta mä selitän sitä sanaa. Minä olen somalialainen, joka on kärsivällinen, pitäisi olla kärsivällinen. Okei. Se karisma on tärkeä, mikä? Aivan kulttuuripääoma mä oon selittänyt. Karisma, se tarkoittaa nin qurxan ama gabar qurxan oo markay soo gasho goobta jawiga bedelaysa sida Ronaldinho oo kale. Waa tabar oo dadka intay u bagaan oo la yiraahdo war gabadhan ama ninka quruxda badan dartiis wax lagu siiyo. Hadda nimanka raabka qatar waaye, laakiin xogaa qurux kuma jeedo. Salaamu calaykum waraxmatullaah.